شيخ سؤال مويدين كرا السلام ها عليكم. ويد waa ku maqlaa أوكي. tv-ga daawan telefonka hada عدك كحرا قال. codkaa kor u qaad wax yar هذا مين مقصر ها waa ku السلام عليكم. maqlaa شيخ waxaan ku weydiinaa walaalkay ila dhashtay ma jeclo mar walba inuu nasoo xiriiriyo anaga waa xiriirinaa hooyadiisna sidoo kaleete ma xiriiriyo way ag joogtaa ma ka duceysanayo mar walba wuu ka xanaajinaa wuu ku oysiinaa marka ayadoo saas ay tahaataa anaga waa xiriirinaa oo asoo nasoo xiriirin waa xiriirinaa oo waa naseexeynaa saas ay tahana nama soo xiriiriyo marka qofkaas marmar waa xanaaqaa waxaan dhahaa asba kuma soo xiriiriyo isadaa marmarna waxaan dhahaa maya xanaaqan iska xiriiri xanaaqan xariiri maxaa yeelay adiga xadiiska nabiga alayhi salatu wuxuu ahaa qofka riximka xariirinaya oo isagana oo xariirinaynin lugihiisa bambas dab oo naar ayaa ugu jirta ninka oo la xariirinayo oo dadka xariirinaynin waa asagoo dambas naar lugaha ugu jirta weeye saasuu ku yiri nabiga alayhi salatu ninka u yimid marka ilaaha ka baqo war nin kasta dadka xariirinaynin qaasatan gabar walaal waa hadda waxaan ka hadlaynaa mawduucan ka hadlayna waay balse waxaa kasii daran hooyadii oo kasii weyneed ayaa waxaa leedahay oo xariirinaynin marka waxaan leenahay war ilaahay ka baq adduunyadan waxay tahay ma laha waajibaadka ilaahay aan gudano gabdhaha walaalaheen aan ka war hayno hooyooyinka sidoo kale qadka